munaasabad lagu weyneynayo xuska dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana munaasabada ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo isugu jira culimaawidiin dhalinyaro iyo waliba haween inta ay socotay munaasabada lagu weyneynayo dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxaa halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyay culimaawidiin kala duwan kuwaas oo goobta ka sheekeeyay taariikhda nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee suuratu alam tara inoo warantaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dacwada waday muddo 23 sano ah oo u qaybsanayd Makka iyo Madiina sida quraanka ba aynu ku aragnay Makiga iyo Madaniga nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay wuxuu dhintay isla maanta oo kale maalin isniina bishuna ay tahay sidan oo kale 12ka bisha Rabiul Awwal ee bisha saddexaad u dhintay 63 sanana wuu jiray sallallahu alayhi wasallam waxa kadib qabtay xilka Abu Bakar ibn Siddiq radiyallahu anhu ardaa iyo khulafadii kale saddexda hayda Umar iyo Uthman iyo Sayyidina Ali radiyallahu anhu waxaan marka maanta u fadhinaa halkan inaan xusno ihtifaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan rabaa marka inaan in yar kor istaago bal culamaa'ul muslimiin maxay yiraahdeen ihtifaalkan marka aan ogaano waxa uu yahay kadib baa wuxuu noqon doonaa meel muntaliqa meel aan ka duulno noqon karaa waruuxan muqsac balaadi khuraafaad ba misawaa wax mashruucahu caadi ah haddii uu mashruuc noqdo مسادير بانكو يان شيغينا ان شاء الله تعالى aan dhihi doonaa hebel iyo hebel baa sidaa qabo qofkii markay isagu wax mutaalacayn karana halka su'aadaya qofkii kale isagu wixiisu ay iska tahay zawbacana de waxaan leenahay nasiibkaada iimaanso ihtifaalka nabigu malihin nabigi baa dhigay sallallahu alayhi wasallam markii laga yimaado takhriij yar oo bixin hayo قسطلاني شارح البخاري وبحنها وإلهي تخريج بانو هيا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إساقا أدبال دقي الصوم بومان تكون نولي وحي النبي الصوم كن نولي أننا إحياء كلاء حصوان كن نولين كرنا إلهي مركا لقي ماتو النبي صلى الله عليه وسلم سي ببلغ أمردقين حفلت إلهي وحانو أدبال دقي مالين تيان رشي سيدو كرنا خلفاء الراشدين تمين دقين حفلت إلهي نبي الله محمد مالين كور رشي وحانو أدبال دقي نانا مردقين mar hadaad ka qanacday salaf saalix xafladan inaanay sidan jamaaciga u dhigin yaa bilaabay marka waxa isgarabtaa laba riwaayo oo labaduba taxliilin doona riwaayo waxay leedahay waa mufabrak waa been abuur waxa leeyahay qarni salliya ilaahay wuxuu ku salinayaa 10 goor ninkii 10 jeer igu salliya ilaahay wuxuu ku salinayaa 100 goor ninkii 100 goor igu saliya ilaahay wuxuu ku salinayaa 1000 jeer ninkii 1000 jeer igu saliya ayuu yiri rasuulka sallallahu wa sallam alayhi harrama Allahu jasadahu min an-nar ilaahay jasadkiisa wuxuu ka xarimaa naarta asxaabta kamida ayuu ahaa Ubay ibn Ka'ab nabiga ayuu yimid sallallahu wa sallam alayhi ya rasuulallahi waqtigeygiisu u dhan yahay thuluth intii adiga ayaan kugu salinayaa buu yiri rasuulka sallallahu wa sallam alayhi waad wanaagsan tahay buu yiri si kastaba ha yeeshee marka la gaaro 12ka bisha Mawlid oo markii uu dhashay nabigeena Maxamed ayaa laga xusaa guud ahaan dalka Soomaaliya Axmed Caydi Diiriye Somali Channel magaalada Kismaayo